kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka iyo nabaddoonnada dega gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo afjaray khilaafkii iyo madmadowgii ka taagnaa maalmihii ugu dambeeyey degmada Baraawe iyo dhismaha airportka. Dhammaan odayaashii kulanka isugu yimid ayaa isku raacay in beesha Tuni ay xaq u leedahay masiirka degmada Baraawe. maaragtay sheeg markuu xariga laga jaro markii airportkaas laga soo dego oo dibadaha dadka jira yimaadeen maxaa bilowda wax walba waxaa bilowday dhismo NGO yaa bilowday maalgelin baa bilaabatay wax walba bilowday maxaa ku xiga dekada dibadda noola soo shaqatay oo Allah iyo reer Baraawe hadeena haddii airportkii noo dhisay dekadana aan dhisano ya dibadaha Soomaaliya jirto maaragtay banaayadaas aan noo soo shaqatay wax allaala wixii hadda halganka loo socday waa dambeeya ina laga hor dhacno ma laakiin waxaan leenahay ditoorka waxaan leenahay wax allaala ku hadashay waa ku garab taagna waan ku soo dhaweeyay wax qalad inuu sheegay deegaanka cabirkiisa waa ku dhameystiran yahay cila had caqab ku labayn male laakiin aniga qaasi waxaan leeyahay لا تعرف سلطان أدليني سدح أدليني لوا أدليني بروح راح نقول لك وجل على سرعة نقول لك وجل يا سرعة وبعد التيم يجي تفتو حقاني وصوت ليه كان ممكن إلى واحد كل وقتين حرام بكتاب الدنيا هيا وقلنا ولادنا يا ذكر منك يا ذكر حق معرفة أنا وأنت أصعد بالحرام أنا محقود الحرام هذا توحش المهزي حتى ورثنا مال ذلك السودان كسر عن ولد جنود ولد نبع ولدها جوز أنت تاكلسي جوز أنت تاكلسي بروح وضعها كيس دوبية لكن قص وحال وضع قص شنقف فنجاري شنقف قص وحال وضع وارتد شنقف فنجاري qof bay looga jooga aan asalkii suldaan aan ahayn suldaanimada awood boolis lagu geeyey ninkii suldaanka ahaa hoolka ku jiray awood boolis lagu saaray ninkaana lagu geeyey saas daraadeed loogu samay inuu deegaanka wax ka bedelo deegaankii wuxuu noqday deegaan burgi ah fooda ah dadka deegaanka wada degan waalaha aan lagu dulmaayo saacnagu nahay dadka reer Baraawe hadaan nahay kulligeed reer Baraawe aan inteena ka Suudaankii uu joogaa insha Allah deegaanka uu imaan doonaa Suudaanka xaqa ah dhabta ah uu imaan doonaa deegaanka insha Allah tan kale labaad reer Baraawe waxa ay sheegayaan annaga wada degan hadii caaw Baraawe guto annaga naga guuleysan qof Muqdisho jooga hal ilabo ama qof macnaha in bay dooga joogaan ila qof oo reersan Baraawe joogta xabad naga bedelaysa maal inteena kala isku doonaano maamul lagu soo dhisay kan hadda dhisan ila soo dhisi doonaba banaanka lagu soo dhisay Baraawe kama shaqeyn doono kuwana la soo dhaweeyay baxooga meel la geliyay ay degan yihiin mid kale la soo dhisay Baraawe ma ku shaqeyn doono maamul waxa ka shaqeyn doono Baraawe mid degmada laga dhisay la yaqaano oo magaalada fahmaayo horumarkeeda ka shaqeynaayo kaasa ka shaqeyn doona insha Allah laakiin qof dad waxa laga soo sheegay diyaarada soo saaray oo fikirka loo soo dhiibay degmadaas tagsaarna suux kastaba loo meeliyo oo la leeyahay haddii go'aanka aniga aan ku dhahay waxa ka bedeshay waa ku bedela la leeyahay ma shaqeyn doona insha Allah markay arkeen qabaasha iyo cabshada jirta Baraawe ayaa ku qalaftay in dadku isku go'aan isku yimaado gosha marka hordhaceedu wuxuu yahay wanaaga iyo nabaddoonnada iyo gaanka loo sameeyo beesha dhafra way hadda ka dambeeyay dhacwaya sida loo sheegay waan suuqina waa soo dhaweeyay gosha waa soo dhaweeyay ummadda laakiin dad waxa jira wax ma tashiir oo meelaha wada deegaanka Soomaalidu way kala
Soomaali ka sandeer lagu yaqaano degan baraawo iyo nawaaxiisa waxaa degan shagamaas ayagaana xaq u yeeshay Ilaahayna ku mamaysto ayagaana looga dambeeya soo wax ku mahadalunta horlunta madawga kala dhaafooyo shagamaas cidii ku qabsatay deegaankeeda ee ilaa waa idin waa la fargelayna way ka qadaan shagamaas waxaan ka rabnaa kaliya ka rabnaa maamul odayaal culumo dhalinyaro inay ummadda Soomaaliyeed ee la degan isku wata marka ninkan doctorka ah gaar Allah siiyo wuxuu noo bilaabay oo maanta noo soo bilaabiyay nabadda degmada Baraawo noo bilaabiyay haddana wuxuu noo bilaabiyay gobol la isku keeno maay maxaa tirina waa noo bilaabiyay hortoro guul iyo gaar Allah ka siiyay midda kale shangamaas ninkii Baraawo ku haysto nin jooga ma aha waa nin maqan ninkii dhahay waa lagu haystaana waa haasabaga haweenka ay ku haasaban suldaan bay leedahay wax kasta ay leedahay iidaana ka dambeeyna anagu caruurteedii aan nahay sababtoo ah Baraawo aan lagu dhal intaan ku soo dhamaanay inaan wax dulminana Ilaahay noo abuurna dulmin dadka dulminana Baraawo shangamaas anaga shangamaas